بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. arrimaha maaragtay gacanka hadalka ah ama khilaafyada ka taagan Soomaaliya gobolada badan ee ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya ama ha noqoto Puntland ama ha noqoto Hirshabelle ama ha noqoto Jubbaland ama ha noqoto Koonfur Galbeed dad badan ayaa isweydiinaya maxaa u sababa khilaafkan meesha ka jiro intaas maamul goboleed oo hadda waqtigan la taagan yahay oo macnaha maalmo gudaheed u dhaxaysay maxaa sabab u ah maxay salka ku hayaan dad badan ayaa isweydiinaya laakiin nasiib xumo jawaabteedii dadku badankoodu ma hayaan ama ma isku dayin in ay macnaha si hoos ah oo maaragtay oo qatar dheer inay u eegaan waxa kalifay colaadahan oo khilaafka siyaasadeed ah khilaafka qabiilka ah isla markaana isku rogay gacanka hadal iyo in maaragtay ummad iyo shacab Soomaaliyeed macnaha dhiigooda la banaysto markaan leeyahay jawaabtu dadku badankoodu runtii ma aysan isku taxluujin waxaan ula jeedaa hadda markaad eegto Puntland laba group ayaa ishayo labada group jawaabaha ay ka kala bixiyeen waxa ay salka ku haysa dhibaatadan iyo wax sababta u ah jawaabaha ay ka bixiyeen cid walbaba ayadu qeyl isku yeelayso ayay shacabkii Puntland iyo Soomaalida ay wada qaateen markaad eegto arrintan ka taagan Hirshabelle sidoo kale labada group is hayso waxa la qaatay kaliya jawaabihii labadii qole is haysay markaad eegto Koonfur Galbeed dhibaatada ka jirto waxa jawaabaheeda la qaatay labadii qole kaliya is haysay markaad eegto Jubbaland dhibaatooyinka waxa salka ay ku hayaan waxa la qaatay labadii qaybood is haysay laakiin run ahaantii jawaab ma u noqon kartaa dad ayaga is hayo oo tartan ka dhaxeeyo jawaabaha ay bixiyeen in maaragtay sababaha ay salka ku haysa dhibaatooyinkan inay yihiin arrin xaqiiq ah oo jirta anigu run ahaantii ma qabo sidaas darteed ayaa wax igu kaliftay in aan arrintaani oo anigu ka shakhsi ahaan uga jawaabo إن شاء الله أنت أنا جاوبت إذا بحن واحد رباط إن أن دب إذن عليه ولا سعودين إنه شركة دعي دولة ديس كان هذا معناها دولة دجتو لما كوني أفرتي ذلك كي مقالة إنبجاتي رنتي وحلقس شركة كذب وحكسوا بحي دولة داسي ومانتا أهتن مانتا جتو أو شقيسة هير فدرالي هير مامل قبلين markaad fiiriso cutubka koowaad ee dastuurka hadda dawladda u yaalo wuxuu leeyahay Soomaaliya waa dawlad federaal ah dimuqraadiyad ah kuna dhisan matalaad dadweyne waa taasi wax aas ku ah dawladda oo mabaadi u ah isla markaana loo baahan yahay in ay ku shaqayso dadku markuu badankiisa arrimaha federaalka ay ka hadlaan arrimaha federaalka dhibaatooyin ayuu leeyahay laakiin dhibaatooyinkiisa insha Allah mar kale ayaan ka hadlayaa tan labaad mabda ay dawladdu ku dhisan tahay waxa la yiri Soomaaliya waa dimuqraadiyad kuna dhisan matalaad dadweyne labada tiir ay dawladdu ku dhisan tahay oo ay la rabo in ay goolka ka dhaliyaan mid ka ah dimuqraadiyadda kuna dhisan matalaad dadweyne ayaa sabab u ah maanta dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira oo maamul goboleed walba ka jira federaalka ka jira shalayna asaga ayuu ahaa maxaan ku cadeyn karaa arrintaasi oo macnaha ii noqon karto daliil inay arrintu sidaa tahay
waxaan rabaa maanta waxaa jirto 5 maamul goboleed ayaa jirto mid waxaa madaxweyne ka ah Axmed Madoobe oo Jubbaland mid waxaa madaxweyne ka ah Saciid Dani oo Puntland mid waxaa madaxweyne ka ah Qorqor oo ah Galmudug mid waxaa madaxweyne ka ah Cabdixasiis Laftagareen oo Koonfur Galbeed midna waxaa madaxweyne ka ah Cali Guulaawe oo ka ah Hirshabeelle tan dowladda dhaxana waxaa ka ah Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka ah lixdooda marka aan fiirin ma ii sheegi kartaan marka lixdaasi maanta ka jirta oo xukunka fuusho shan ka mid ah tan Puntland oo soo noqon doonaa shan ka mid ah sida ay ku yimaadeen maxay ahayd masajidta shantooda in ay si nabadgelyo ah oo cadaalad ah oo raalli iskaga yahay inay ku yimaadeen mid walbaba shantooda dhiig ayaa ku daatay dad baa lagu waayay dad ayaa ku barakacay dad baa dhiigooda la banaystay tusaale Koonfur Galbeed Cabdixasiis Laftagareen markuu madaxweynaha noqonaya waad ogtihiin qaabkii lagu geeyay iyo qaabka lagu soo saaray lacagta iyo musuqi la isticmaalay iyo dawladihii shisheeye la isticmaalay dhiig baa ku daatay dad badan ayaa lagu laayay oo maanta wasiirka cadaaladda oo maaragtay oo dawladda federaalka Robo oo xabsi loogu dhigay dad badan ma ku barakacay labo tan Galmudug maanta ka dhisan oo xukumo Qorqor waad ogeedeen ahla sunna iyo jamaa in laba jeer uu dhiig ku daatay dagaal ka dhacay dad badan baa ku xay dad badan dhiigooda ku baaba'ay dad badan baa la laayay ama ha ahadan kuwii isaayay labadii group ama ha ahadan umad kale oo shacab ah oo masaakiin aan waxba ka warqabin aan u soo noqonno tan Jubbaland waa la socotiin doorashadiisa sidaas oo kale ayaa dhibaato ku dhacday asiga kayskiisa waa gooni waa dal ku dhaxyaalo oo dal kale oo ka tirsan oo Kenya oo ka tirsan yahay oo umadii maaragtay oo dagaal ka dhacay maanta gada iyo maamulka Axmed Madoobana doorashadaas ayaa u sabab ahayd ama mid ayaa u sabab ahayd inay maanta dhibaatadaas ay soo socoto ay jirto waxa ku soo haray maamulka hadda Puntland maxaa la isku haystaa waxa la isku haystaa waxay ay tahay waa arrin doorasho oo ah muddo kororsi oo ay ku tuhmayaan qolooyinkan ka soo horjeeda inuu rabo inuu Saciid Dani subsado waxa kaloo fiirsa Xasan Sheekh Maxamuud dowladda federaalka maanta uu xukumo ayada laftirkeeda dhiig ayaa ku daatay waad ogtiin markuu farmaajo 2 sano uu subsaday waxa la yiraahdo muddo kororsi in ay badbaado qaran soo baxday oo dhiig ku daatay barka ka dhacay العموما اسكو صدوب arrimaha dowladda Soomaaliyeed la yiri shalay waxa dhibaatada idin keenay waxa daawo u ah laba qodob inaad ku heshiisaan aad hirgelisaan oo ah in nidaamka federaalka ah awoodaha la kala qaybsado saddex heer loo qaybiyo federal maamul goboleed iyo deegaano labo in waddanku noqdo dimuqraadiyad matalad dadweyne ay timaadaan marka labadaba run ahaantii waxa loo suubiyay ulijeedooyinku waxay tahay kow in ummadda aysan shalay kala tagtay in ay lisku hayo oo calaad dambe aysan imaan laba dawlad maaragtay cadaalad ku dhisan oo waarto oo maaragtay madama inaysan naga burburin in lagu helo marka fiiriso tan oo maaragtay dawladda federaalka dhaliilo badan ay leedahay dhibaatooyin badan leedahay walijeedkii goolka laga leeyahayna oo Soomaaliya ah annagu run ahaantii applicable ama ma lagu maareyn kara dhibaatada kulli anigu uma malaynay laakiin mar kale ayaan dawladda macnaha nidaamka federaalka ka hadlay federaalku wala socotiin dhowr jeer in la isku qabtay oo la yiri federaalku maaragtay sidiisaba waa qaadacni
Jubbaland iyo Puntland aad baad uga maqasheen laakiin wax dhiiga kuma soo daadan laakiin markaad fiiriso tiirka labaad ee Soomaaliya loogu talagalay oo ah in dimuqraadiyad iyo matalaad dadweyne ay ku dhisnaato waa kan kaliya ay dhiiga ay ku daataan mar walba waa tan kaliya ee qalqalka geliya dowladnimadii iyo jiritaankii ummadda Soomaaliyeed waa kan kaliya ee kala qaybiya macnaha qabiiladii Soomaaliyeed oo cuqdad u kala abuura waad la socotay maaragtay qof walbaba oo maaragtay xukunka markaa ku fadhiyo shuruucdii doorashada lagu galaayo lacagtii dowladda asaga ayaa gacanta ku hayo labadii wuxuu u adeegsanayaa sida uu soo noqon lahaa oo uu sii joogi lahaa ayuu u adeegsanayaa taasi marka maxay keenaysaa in qalalaasa iyo dhiig meesha uu ku daato taa maxay kaloo keenaysaa in uusan tartan xalaal uusan imaan taa maxay kaloo keenaysaa cuqdad iyo kala fogaansho in ay macnaha dadkii deegaanada deganaa ama mid federal ha ahaato Soomaaliya dhan ahaato ama mid goboleed ha ahaato qabiilada deganaa ay ku kala tagaan ay ku kala irdhoobaan oo cuqdad ay timaado marka isku soo duubduub labadii nidaam oo loogu talagalay dhibaatadii shalay Soomaali u timid ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan rabay in lagu xalliyo oo 2004 ahayd federal in dowladda noqoto dimuqraadiyad oo matalaad shacabna ay noqoto in ay noqdeen anigu maadaama hadda aan hal qodob soo qaatay aan ujeedkaygu ahaa dhibaatooyinkan soo noqonaya ee deganaansho la'aantan iyo ummadan kala tageeda in ay ugu wacan tahay qodobka labaad oo ah in dimuqraadiyad ah isla markaana ku dhisan matalaad ay tahay tan dhiiga badan iyo kala maaragtay kala qoqobnaanta ummadan iyo cadaalad darrada iyo maaragtay kala taga iyo inaan u ekaanin shacab Soomaaliyeed inaan waligeen helin dowlad asaga inuu mas'uul ka yahay ayaan macnaha aan ugu dan lahaa inaan macnaha muuqaalkaygan ku iftimiyo waa anigoo ah Maxamed Xuseen Cadow waad mahadsantiin ayaan leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.